daraagada iyo nuucyo kala badan ah waxa hadda soo baxay kaniini fentanyl la dhaho ilmaha haduu cuno maba soo noqonayaba hooyo ilmaheedii bay u dhaawacsan tahay hooyo ilmaheedii bay u hooyeysaa khayr Allah siiyo wiilashan halka noogu yimid annaga ayayna qusaysaa annaga ayay dan noogu jirtaa usoo haajiridii dalalka galbeedka waalidiinta Soomaaliyeed waxa ka haysta caqabada ay kala kulmayaan dhalinyarada waayadan dhibaatadu maalinba meel bay ka imanaysaa Minnesota waxa hadalhaynta ugu badan noqotay dhimashada dhalinyaro isticmaasha kaniiniyo xadkooda dhaafsiisan oo maandooriye ahaan ay u isticmaalayaan dhimashadu sanadkan 2019 waxay maraysaa inta la og yahay 24 waxaase la baraarugay markii bishii tagtay ee September 4 Soomaali ah la aasay dhalinyaro wanaagsan iyo tiro hooyooyin ah ayaa isa soo abaabulay goobtana ku wada murugaysan marka laga hadlayo waxa socda iyo dhacdooyinka qaar ayay la ilmeynayaan markaad maalin walba arkaysid cunugaagi oo isdhaafsan oo habeenkii aan imaanaynin hooyo seexata malaha marka qarsashada aan qarsanayna hadaan hooyooyinka Soomaaliyeed waxa nooga caafimaad badan inaan ka hadalno oo ayagina kala hadaad maanta cunugaaga kala hadashid oo u sheegtid in waxaan ay tahay wax dhibaato ah oo caawimaad u baahan marka hore haduu ku diido xataa markii dambe markuu og yahay asaga inuu caawimaad u baahan yahay laakiin markuu ogaado inaad adigana ogtahay inuu caawimaad u baahan yahay isaga way u fududaanaysaa inuu caawimaad raadsado waa hooyo Soomaaliyeed oo dhiiran waxay fartuun dheel u bareertay xalinta dhibaatada balwada ay wiilkeeda ku jiidatay waxay u hurtay maal iyo waqti si ay ugu dabiibto aakhirkiina waxay gaartay arin tusaale mudan waxayna ii raacisay laakiin markaan aniga furtay qalbigeyga oo aan cunugeyga inuu xanuunsan yahay oo kale ula dhaqmay oo aan la fariisto iraahdo haye ma iska deyn kartaa hal maalin xataa oo isku dayay asaga inuu iska daayo laakiin uusan iska deyn karin inuu dhididaayo aniga markii dambe ku caawiyay waa ku soo dhaweeyay waa ku caawiyay waa la raadiyay markii dambe asaga wuxuu yiri hooyo hadda lacagtaada kaliya kuma isticmaalayo bahashan aniga waa ogahay inaan iska deyn karin xirma ihi meel baan raadsanayaa maantana meeshii buu ku jiraa meeshaas baa hadda haysanaa Soomaali laba wiil hadda meel leh treatment ah kan marka wiilkan wuxuu ku caawiyaa ciyaalka medication ka yareynayo xanuunka ay ku qabanayso balwad la'aanteeda biya baa lagu siiyaa waa halis haddii dan iyo daruuf isbiirsatay ay qofka meel dhigaan balse qofkii daryeel rasmi ah hela ayaa ka bixi kara dhibaatada dhalinyaradan maanta waxay u istaageen inay iskala hadlaan qatarta qaar ka mid ah la soo daristay xanuunka ay arinta ku haysana waxay ku keentay inay mahmahaan ayda maxay ku maamahdi jirtay cunto qofku si waa helaysa qofku waani ma helaysid kulli Soomaali waxay ku mahmaadaa farkaliya qorax ma qariso waa ay dadaaleen waxay taasi muujinaysaa xaaladda taagan in wax u sheegis iyo wadar in wax loo wada qabto weey ujeedadoodu dhalinyaradan inkastoo la waaniyay iyaguna dhankooda ayay waalidka wax uga sheegayeen hadii hooyo hal mar gacanta ku taagtay tiraado ilaahayo cunuga ii soo hanuuni ilaahay wuu ku hanuunin karaa soo hana habaarin markaan habaartid habaar samadu gala meelna ma ku dhaco meel cidlana ma ku dhaco soo hadaa imaado anoo indhahay guduud ah ama hadaa imaado anoo cunto cuneenin ama anoo jahawareer haayo hadaa habaartid habaarkaas meel ku dhacaya inta ay dhiglaad ilaahay ku soo hanuuni maxaa dhasay wilaale war ado samaams maxay ku habartama ado socoto gaari ha ku dardaro waxa isweydiin leh waa maxay dawooyinka ay dhalinyaradan qaataan ay u dhintaan halkayse ka keenan waxa si wadara inoogu sharxaya Yuusuf Shaafi iyo Samsam Maxamuud oo ka hawlgala xarun lagu dabiibo dadka daroogadu daashatay oo ku taala Minnesota dhalinyarada waxay qaataan kaniiniyo badan oo xanuun baabi'inay iyo kaniiniyo kale oo dhaho maxaa la Percocet iyo fentanyl iyo carfentanil daawo la qaataan markay basadaan qofku ugu dhiman karaa mid kale oo hadeertan wiilash badankooda dilayso fentanyl kala dhaho kaasi wadad jidka ka iibsanayaan qaalina ma ahan dad baa jira Mexico laga keenaa wadamada kale laga keenaa badana markii ugu horeysay dhalinyaradu ay la kulmaan daroogadan daroogooyinka noocay toonaan ha ahaadaan waa markay high school ku jiraan